بسم الله. maanta taariikhdu tahay shantii bishii 12aad 2024 magacaygu waxa weeye Kabtan Cabdixakiin Xasan Carte oo loo yaqaan Djibouti waa taliyaha saldhigga aaga waqooyi ilaa Goobeyn iyo aagaas in muddo 12 sano ah ciidanka dawladda Jubbaland gaar ahaan ciidanka booliiska waxaan marka intaas oo dhan igu soo tabacday oo intaas oo dhan juhdi iyo dhaqaale iyo tababarba igu bixinayay dawladda Jubbaland sida si lamida waxaan in badan ka soo shaqeeyay saldhigyada kala duwan ee area-da degmada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose ilaa iyo haddana aan ku dhex jiraa oo aan ka shaqeeyaa intaas oo shaqo anagoo soo qabanay muddooyinkan dambe waxaa xiriir ila soo sameynayay guddoomiyihii hore oo degmada Badhaadhe Madfanax ninkaas oo degmadii uu xukumay ee lagu ogaa ay dawladdu u xil saartay khalkhal amni ku abuuray ciidamo aan loo baahnayn oo fawda ka dajiyay waa wuxuu anigana xiriir ila soo sameeyay aaga aan xukumo ina aan sameeyo ilaa magaalada gudaheeda inaan afgembi aan ka sameeyo taasoo aan ii qalmaynin marnaba aanan aqbalaynin yeelinahaynin isaga oo adeegsanaya dhaqaalihii uu soo diray taliska booliiska aan ku wareejinay taliskuna wuxuu ku wareejinayaa wasaaradda maaliyadda lacagta kow markii hore waxaa la soo diray $70,000 waxaa ku xigtay 15,000 waxaa ku xigtay $5,000 waxaan anagu haynaa waa tusoo itaabsi waxaanu been ka sheegayna ma arabna marka aan rabnaa inaan u sheegno baq aan u dirno ama aanu wacyi gelino dadka saraakiisha dhiganaga ee nala midka ah ee la wacayo ama la rabo in khalad laga dhaadhiciyo ma suurtoobayso mana soconayso arintaas anagu Jubbaland baan nahay waxaan nahay dawlad kaabayaasheeda dhaqaalaha iyo dastuurkeeda wadata anagu dad baahan oo sakaraada manihin qadiyada wax walba ka muhiimsan intaas oo sanaan u soo dagaalameynay iyo in ka badan oo ka sii horeysay awiyaalkana u soo dagaalamay waxaan u baahanahay markii qadiyadanada ma siisanayno shilin haddii aan marka saraakiisha waxaan rabaa inaan u sheego hadday iga sareeyaan iyo hadday iga hooseeyaanba arintaas iyada ah inooma cuntanto wax soconayana ma aha wax inoo wanaagsanna ma aha sharafteenana ma aha arinta laga digtoonaado arinta ayaan la isku halayn haddii Ilaahay yiraahdo dawladda Jubbaland way mahadsan tahay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa wax Ilaahay abuurtay oo aanu isku bedelanayno oo siisanaynaana ma jirto wabillahi tawfiiq